بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي يا ردين السلام يا أصحابتي قروحة بدنايد الشرفت لهايد سيتهين ما وناكسنتهين. الحمد لله أنا جواسك وناكسنها ما شاء الله تبارك الله. إذن كان صداي السلم مده حياني لهايدين كرتشينيا بريها وصوتها مشغول سبحان الله. يعني نمعوين إلهي بان لا كل مي يعني waxaan ku jirnaa bando baan ku jirnaa marka hore isbuuc baana looga buuhaa marka kale lagu sii daray haddana waa lagu sii daray haddana ilaa iyo September waa ku jireynaa haddii Ilaahay idmo lagana yaabay teeramkan oo dhan in maaragtay xaggan la guriga la iskaga dhameysto yani remote learning ka guriga la yani ilmaha iyo dadkuba wixii yani saas lagu maartay wixii xabaranaya ku wadaan marka alxamdulillah kama balayn garaynayno nimcooyinka Ilaahay iyo qadaraha Ilaahay inoo qaybiyay Ilaahay waxaan ka baryaynaa xanuunkan meel kasta aafeeyay ummadii kala xidhxidhay Allah inaga saaro ويعني وتست حق ربنا وجيم ويان إلهي وحن كبرنا كل سمرة معركتي هذا أضيق يكسي قاعدة معركتي إن عقيدة دو إلهي هجاتشيو حريرك إلهي إنه ناتشنو إلهي هينا وقدر ربي الرحمن كا إلهي وحن كبرنا أنت كل ما الله ونحرسته أنت حنوصل السنة إلهي وحن كبرنا عافمات سريعنا الله السيو gobolkan aan joogo ma aha gobol saas ugu badna gobolada kalena hal gobol un baa xoogaa ku badan yahay Ilaahay waxaan ka baryaynaa sidina inuu culayska Ilaahay ka qaado annaga saas uma badna laakiin wuxuu jecel yahay premier kani ma hal qof hadii la arko wuxuu jecel yahay inta qofkaasi uu maaragtay caadi noqonayo in maaragtay uu xun ku sameeyo oo yani u dadaalo marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa dadaalkiisana Allah la qabto إلهنا وحن كبرنا ضمدنا الله وذا أمان سد آمين يا الله إننا كوه جام سنة شرعية ده ودمدي تشوغان أو ودمدي النية يعني لا شقية دولة ده هي ما مرتي معاملة ده حكومة إلهي هاي نقدر آمين يا الله هذا الكمر كيا مكرّاجو هو يدبا هذا الك أنت إن شاء الله مركو حربة هدي لهاي دمو إن عدنا لقيب صدو إن كيتشة عن كشقين أيوه إن كيتشة سبحان الله مركز توحانس كود ضيّنا كان ترولو لكن ما كان ترولي كرو حوشة بدتها وسخدة إن ويلكا يقبضها إن مشينك ويلكا دقانة إيميالو إن مركا وحنا سمي قعنتان كل دقا مركا ساو سبحان الله ويلكا قعميه باي مدوبادي إلا ما أنت عقل سدا ويل بان دقايا مركا أنت عشاها عيالك وكريا هبينك جمعها بنا عشف يعني ما شاء الله وكريا إن أنت كلا وحبان سكبرتها يجنا عيالك راح برتان مركا وحان سميي وحان قو صدي إن عيالك عنت كرنت برو marka wiil baan rabaa insha Allah inaan ku bilaabo umar la yiraahdo hadii la haydmo marka waxaan sameeyay habeenkii intaan aniga cashadii sameeyay baan waxaan dhahay waalkayga iyo wax walba ana israacsanaya iga raali hada ana israacsanayaan dhahay marka waa darkaysan fiidiyooga markuu bilaabmay kiijada si wasakhood xitaa miiska hoostiisa waan duubayaa si wasakhda ku jirta aad u aragtaan yani waxa ku daadaatay subhanallah wadiyaabisa ma sha Allah meesha dadka meesha yani uskagta waa meesha dadku ku nool yahay Ilaahay waxaan ka baryaynaa awlaad Allah inoo barakeeyo intaan Ilaahay awlaad sinina awlaad saalixiin Allah wada siiyo inagana baariin Allah inaga wada dhigo aamin ya Allah marka kichada ma sha Allah waa man daalay baan wax yar wada subhanallah marka kichadii saas bay isugu dhex qasnayd saas bay u wareersanayd xaalada kale ku sugnayd marka waxaan sameeyaa marka horta waxa fiican aad meel ka shaqeynaysid dhar aan ku dhibin inaad qaadatid sida midna surwaal fiican laabadaada hoosta waad xidhatay marka soo kacday laakiin surwaal qof fiican dhar maaragtay hadaad guriga iska joogto funaanad xoogaa yara dheer ama toobabka gaagaaban ee maaragtay ruuga jooga iyo badhag la isku siiyaa kabo fiican oo sida kabaha sportka kalana waa la xidhaa kaba fiican oo maaragtay cagahaaga ku fududeynaya wasakhna lahayn oo yani guriga xagga inside ka guriga aad maaragtay kula dhex mari kartid oo aan maaragtay nijaas ahayn
oo ballaankii musqushii la gelin marka kabahaas baa loo xidhaa si ay kuugu fududaadaan cagahaagina saboodu helaan marka saas baan aniga badanaa sameeyaa shaqada waxaan sameeyaa shaqo kastoo la bilaabayo ama hawl kastoo la bilaabayo waxaa wanaagsan meesha ugu fudud in laga bilaabo matalan haddaad aragto gurigaaga oo dhan oo wada wasakha meesha ugu xun oo ugu culus lagama bilaabo waxaa laga bilaabaa meesha ugu fudud tusaale ahaan ani waxaan sameeyey qashinkii baan iska guray iyo cuntadii soo hadhadhay baan guray kabacdi waxaan sameeyey weelkii baan xalay weelkii markaan xalay waan wada qalajiyey kabadhadaan ku xareeyey markaan xareeyey ee shay walba meeshiisii ku celiyey waxaan sameeyey miisaskaan tirtiray miiska qadadaan tirtiray maasha allah meelahan yarar ee maaragtay fiish taangiga iyo meesha kaamarada bahalka kaamarada ii saarayaan tirtiray adigu wixii baan tirtiray maasha allah marka intaa tirtiray waxaan sameeyey dhulkii baan xaaqay dhulkii markaa xaaqayna waan masaxay soo marka way yaraatay hawshii maasha allah aad bay yaraatay marka xaafadeena maasha allah aad bay ammaan u tahay markaan ka seexanayay daaqadahan furay anaga qolalku way ka fog yihiin kijada xoogaa fadhiga iyo kijada iyo qadada isku furan isku dhow laakiin waa iska cidlaha winter baan ku jirnaa bad laakiin waa iska waxba cidi qabow ma dareemiso anaga qolalkeenaan ku jirnaa marka daaqadahan usii furay uunsi iyo waxaas ma ku shidinin ciyaalkaas seexdaan uga baqay daaqadahan u furay waa iskaga tegay marka subaxii markaan soo kacayna bas in yara waxyar hiitarkaan shiday laana keji guriga faloorka waxaa weeyaan maaha kaarabed marka waa qabow marka hiitarkaan subaxiina shiday markaan soo kacay khalaas guriga warm buu iska noqday 30 minute baa warm buu iska noqday marka maasha allah haddii aad aragtaan marka kijadoo kale waxaa igu xidhan daahiyar daahaas waa jecelahay waa dhaqaa oo ku celiya mid kalaan haystaa laakiin midkaa kale maba xiiseeyaba kanaanka jecelahay laana kalarka oo greenka ah aqua oo badanaa miiska bahalka ii saaran yahay daaqada marada ku xidhan tahay kalarkaasaan aada u jecelahay marka kalarkaasaan intaa yar baan ku daystaa allahuma mustacaan marka dee aniga dhinacaygii dhag baan ka siiyey waxaan rabaa wiilka igu xiga ee isagana habeenkaas cashada karin doona inuu maaragtay saasoo kale sameeyo kole waan caawinayaa laakiin waa inuu sameeyo cuntada ciyaalka baraya sida loo kariyo runtii aniga hore ciyaalka waxba uguma bari jirin waxaan sii jooga waxba barteen anigoo yar baan shaqo bilaabay guri laga shaqeeyo marka aad baan uga soo horjeedaa caruurta iyagoo yaryar shaqooyinka waaweyn loo diro waxaan sida adigaa soo dhintay caruurtuna ay kaa dhiman haddana waxaa fiican laakiin caruurtu waxyaalaha ay qaban karto sida inay fadhiga ka shaqeeyaan inay qolalkooda ka shaqeeyaan waxaasi waa wax yacnito yacni inay sameeyaan ay khasab tahay inay ku caawiyaan bannaankoo kale gardeninka inay kaala shaqeeyaan waa waxa loo baahan yahay maaha wax oo laga barbaryayo markaas sidaa daraadeed ayaa maarta waxa kale way sameeyaan kijada laakiin cunto karin weli uma dirin noodalka iyo ukunta iyo jabsiga iyo waxaa way yaqaaniin sida loo walwalaaqo laakiin cunto fiican oo reerka hebel baa cashada u karinaya weli maysan samayn markaa dadku gabdhahay badanaa ku bilaabaan aniga curadaydu waa gabadh laakiin waxaan rabaa inaan wiilasha ku bilaabo si wiilkani beritooda noloshiisa ugu diyaargaroobo maanta waxaynu badanaa nidhaahnaa wiilasha soomaalida wax ma kari yaqaaniin hooyooyinka ayaa khaladka iskale sababto maynaan soo barinin odaygaygu maya caawiyo kan maya caawiyo hooyadii baan soo barinin adigu laakiin kaaga bar hooyo kasta haddaba wiilkaaga u tarbiyadee siduu hadhow gurigiisa ugula dhaqmi lahaa marka isaga wiilkan ku horeysiinayaa gabadha ka weyn insha allah way ka dambeynaysaa gabadh baa igu weyn isagaa ku xiga laba gabdhood baa kusii xiga wiil baa ugu yar maasha allah markaas inankan ku bilaabay haddii la haydmo allahuma mustacaan ma aqaani sawiradu sa ii tustusayaan idinkuna hadhow arki doontaan laakiin ana hadda soo ii tusayo hortayda codkanaan saarayo meeshaas waxaa yaala fish tangi baa yaala saddex xabo kalluuna igu jira fareenka derbiga ku xiran dalfana waxaan ugu talagalay fiishka inaan maaragtay tangigiisa kalarka buluuga leh inaan buluuga uga dhigo ama buluug maaha waa aqua waa biyaha badda oo kale sawirka biyaha badda markaas saas weeyaan
allahuma mustacaan kajada microwave-ka korkiisa dhag dhinacan kale waxay yaalaa bahashas haddii aad arki doontaan hadhowto timirtaan ku gurtaa ka yaraaga yaalana olive oil baan ku shubtaa oo maaragteen timirtaan ku dhuuqaa 3 xabo subaxii salaada fajar ama mararka kale ama markaan soomanahay aniga timirta aad baan u jecelahay macaanka aan cuno hadda timirta weeyaan aad baan u jecelahay dawaana sunnihii nabiga calayhi salaatu wassalaam dhinacaas ciyaalka fruitkan u saarsaaraa kabadhada ma ka geliyo waxaan ka baqaadaan kabadhada geliyo in lagu ilaawo boqboqo xaggan waxaan kusoo diyaarsaday shaqada markaan aan kusii talagalay waxaa inaan shaqeynaya habeenkii waxaan sii karsaday waxaan sii qastay cilaan aniga cilaanka aad baan u jecelahay hadda ka hor walaalba waxay igu tiri nala soo wadaagsad cilaanka u qasto insha Allah mar baan soo sameynaya aad baan cilaanka u jecelahay waan ku caqlisaday anoo cilaan marsada marka waxaan sameeyay cilaankaygan sii qastay shaah baan karsaday oo cilaan markaad marsanaysid way iska fiicantahay shaah inaad karsatid درين بطلك waxay igu jira biyo warm ah bay igu jira oo biyaha ma qaboojiyo kiliga yar iyo sidka yar 10 sano ka hor ayaa gabadh social worker hadiyadii siisay waan ilaashada habeenka specialka ah oo wax fiican sameysanayo sida xinahaas oo kale baashaha ku karsada ama marka qof aan aad u qiimeynay yimaadaan shaaha u kariya ciyaalka inay dhaqaan ma ogola ma iga taabtaan ama dhaqaan ama wax ku cunaan ku cabaan ma jecel waan ilaashada ma sha Allah waxa fiican naftaadu waxa iska leedahay inuu jiro waxa guriga ugu fiicanna hooyadu inay nafteeda iyadu la jeclaato sababtoo ah ayada ugu muhiimsan wax kasta hadii ilmaha aabahood joogo iyo haduusan joogin hadii dad kale joogo hooyada ayada reerka ugu muhiimsan way yani wax lagu tilmaami karo ma jirto cid kastana waa ogyihiin madow iyo cadaan iyo maaragtay cid kasta way ogyihiin hooyadu inay tahay qofka reerka maaragtay nolosha reerku ka bilaabanto marka waxayga yar ana isla jecel haddii aad aragtaan ay soo gaadho sawirka xaggan waxay igu jirta CC camera igu jirta hadda habeen bay noqotay 3 dhinac 4 dhinac ba markii hore kaga jirtay guriga laakiin hadda 3 bay ku jirtaa albaabka hore albaabka dambe iyo daaqadaha qolalka daaqadahooda dhinaca kale waa darbi aad u dheer cidina ma gaari karto way xumaatay waan iska marka waxba ma sameyn lacagba kuma bixin dhowr kun bay ku dhowdahay waxba kama bixinin aniga kaamaradan ma gashan waxay gelisay dawladda ay gelisay xaafadayda ma sha Allah aad bay safe u tahay subax hada gaariga furaha ku ilowdid waad ugu tagaysaa laakiin dawladda ay gelisay sama aragtay safety reason bay igu galiyeen marka waa kaasa noloshaada inaad ilaashatid oo haday jirto wax ku cabsi gelinaya inaad wadankaad joogtid ay la socdaan waa muhiim weeyaan aad bayna u fiican tahay marka la ogaado in yani dhibka qofka kan uu tabanayo markaas ay maartay booliiska yani qofkan u proof karaya dhib inuu qabo kabacdi maxkamadda waxa soo dhan u sameeysa guriga daaqadaha aan la jabin karin ka dhigtaa gaariga iyo guriga way soo ka xidhnaanaysa camera soo ka xidhan adiga controlkeeda haysatid oo leedahay bay lagu sameeynaya wax kasto safety-gaaga marka ha lagu dadaalo hadii jirto cabsi in maaragtay lala socodsiiyo cida qusayso culimada iyo odayada iyo ma qusayso arrimaha safety-ga waxay qusaysaa wadanka dawladda ka talisa intay doontaba hal leekaato marka ayaan la isku khaldan arrimahaas oo kale intana waa xoogaa kijada horteeda sawirkan balloonka waxaan ugu dhajiyay meesha waxa ku dhagsan darbiga waraaqo ay ugu dhagan yihiin hadda cidina waraaqa saas isuma soo dirto laakiin dhowr waraaqadood hadda ka horaabay igu jirta laana wadanka hadda waxay u bedeleen xagga technology-ga emailada iyo maarta aababka iyo waxaas hadda ballamihii badanaa loo bedelay marka haddaadan adigu يعني بريه هراح laga yaabaa inay warqado cusbitaalada meel ka yimaadaan marka alxamdulillah sawirkii baan ku qariyay balloonska ahaa iyo kaas marka insha Allah waa daalay waa xiiqay subxaanallah waa soo yara nastay hadalkay markaadan ayaama sameynin xoogaa dhowto waa xiiqaysaa inaad hadal badan isku xidhid 14 daqiiqan hadlay subxaanallah ilaahay waa afkeena ma aragtay xaqa ku sug isla weyniya kibirna ilaahayna ma geliyo hadii ilaahayd ma intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa inaad ka heshaan baan rajeynayaa
gabdhaha Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa faraha waxay naga madoobeysay nagu helo xalayna guriga shaqeynanay ayna wax barano wadamada aan joogno aan ka faa'iideysano haddii alla idmo waan soo badin doonaa fiidiyoyadan oo kale haddii ay suuragal noqoto ilaahay yiraahdo laakiin balanteenu waa waxbarashada biidmillaahi raxmaan maadi iyo diiniba haddii alla idmo